السلام الله عليكم أصحابتي ذا عامر يرى بروموتر كشوقي نجيب ألفا نمبر لبو وحان رأينا الله هذا نجيب ألفا نمبر سدح وحان رأينا ما تي waxaan tagi doonaa dalkaas iyo Ingiriiska gaar ahaan magaalada London xaalada ayaa halkaas ka soo cusboonaaday tan iyo sanadka cusub sida uu dhashay 2022 isdaba jiitamayay bal arrimo meeshaas ka jiraan dul istaagi doonaa hadii anigu isu tahay subscribe taad waa dhiirgelin like taad waa codsi comment-kana fikirkaaga lagu soo dhawaada barnaamijka faahfaahsan waxaan rabaa inaan dul istaago arrin ka dhacday dhankaas iyo wadanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London fanaanka weyn Najib Alfa aad iyo aad baan u salaamayaa ninkaas waa dawanaan only legend ayaa waxa ka soo baxay cabashooyin ay shacabka ay ka soo gudbinayaan nin la yiraahdo muuqaal inkastoo muuqaalada ay badnaayeen laakiin ninka hadalkiisa ugu macquulsanaa aan arkay inuu kan u ahaa nin la yiraahdo ayaa muuqaaladan soo daayay isagoo oo ka hadlaya in sanadka cusbaa show laga iclaamiyay inuu ka dhici doono London ama Ingiriiska aan dhaho magaalooyinkiisa oo dhan ba haduu doono hadhow ku balaarto laakiin markaan isagu wuxuu iclaaminayaa in magaalada London ay khaas u tahay showgii in tigidho la galiyay tigidho loo sameeyay la jartay online laga jartay hadhowna showgii meesha uusan ka dhicin aniga naftirkeyga marka su'aalaan qabaa su'aalaan rabaa inaan muuqaalkan aan bal dadka bulshada reer London ay daawanayso aan ka weydiiyo bal marka hore muuqaalka aan isla fiirsano السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أغيار تواني سلامي سوح ونكسن أرين ير بان ربينان ماركتي ميشان aan ka sheego oo maaragtay Soomaalideena iyo dadkeena aan u soo gudbiyo aniga waxaan ku noolahay magaalada London Happy New Year ki waxa ka jira show uu Najib Alfa u dhagan yahay oo maaragtay la balamiyay mar hore inuu maaragtay show ku sameeyo dabcan waxa dhacday showgii in la cancel gareeyay oo maaragtay dadkii habeenkii meesha iskugu imaaday la dhahay su'aasha koowaad aan rabaa inaan weydiiyo waxay tahay reer London aniga kama warqabin ma arkin loogada ama flowerka ama sawirka loo sameeyay ee la soo dhajiyay ee showga xilligu dhacayo meeshu ka dhacayo taariikhdu dhacayo lambarada laga wici karo marka idinka ma aragteen macnaha sawiro ama waxyaalaha showga markii la dhajinayo loo sameeyo wax taqaanaan baaladaas oo kale intii loo sameeyay ma aragteen bal comment-iga igula wadaaga waa su'aasha koobaad waaya showgii markii la cancel gareeyay habeenkii meesha la wada joogay dadkii waxa loo sheegay maaragtay dadkii online-ka tigidhkooda ku goostay inay loo soo celin doono refund oo lacagtooda loogu soo celin doono bangigooda laakiin sidaas ma dhicin waxa dhacday maaragtay meeshii online-ka laga buugreysanay in laga xiray inuu laga dhigay inuu showgii dhacay oo maaragtay wax showga markii la qabanayo hadii tigid online lagu jirto ama mar walba wax rifaan way jiraan la dhaho oo in lacagta dib lagu soo celiyo ah laakiin se hal maado waa midaas waxa ay tahay qofka hadii uu lacagtaasi wax online kaga gato oo wixii uu heli waayo wuxuu awood u leeyahay direct inuu tago xarunta bangiga lacagtiisina dib loogu soo celiyo marka hadii arrinkaas ay jirto dabcan weygaas in la mari karaan jeclahay Najib Alfa waa fanaan lejana waa nin weyn waxaan xasuustaa showyo fara badan inuu dunida dacaladeed ku qabtay waxaan xasuustaa dhankaas iyo waliba Minnesota inuu showyo kala kacsan ku qabtay sidaas oo ay tahay haddana umaleyn maayo in Najib Alfa laga yaabo dadka ka garab shaqeynayay in dad xun noqdeen ama rakaabkiisa uu markaan xumaaday laakiin Najib Alfa showyadiisii si qurux badan oo sharaf leh bay u dhici jireen balan ku socono meeshan waxaan rabaa inaan kala hadlo saddex qof three people saddexdaas qof number 2 waa ninka la dhaco Amir Yare promoterka showga Najib Alfa number 2 waxaan rabaa inaan la hadlo Najib Alfa number 3 waxaan rabaa inaan la hadlo shacabka oo maalinkaas habeenkaas tigidhka goostay oo imaaday inay daawadaan Najib Alfa fanaankooda Soomaaliga
caamir yare promoterkii Najib Alpha waxaan ku leeyahay waa ku qaldaneed ina meeshii online-ka laga dalbanayay tigidaha aagalisay inuu showga dhicin showgii oo dhicin oo la cancel gareynin hadda sidaas aadan sameyn lahayn dadka waxay soo dalbanayaan refund soo dadkii hadda refund sidaas kuma soo dalban karaan waa numberko waa arin xun waxay idina ka fiicnaatid saas Najib Alpha hal fariinaan ku dhaafaya walaalkay fanaankeenna Soomaali waxaan ku leeyahay waxa lagu sameeyay showgaas waa magacaada wixii farxad mise wanaag ka dhaco waa magacaada wixii xumaan ka dabcan Najib Alpha arrinkaas hadii ay jirto ogsoon yahay waa ku qurux badan tahay inuu ka soo hadlo raaligelin ka bixiyo dadka lacagooda loo celiyo hadii aysan jirin oo laga been abuuranayo oo la iska dhagsada showgana waxay ku qurux badan tahay inuu dhawr Soomaali Maxamed aniga waxa shaqo iyo shuqul toona kuma lahayn saas ku qurux badan tahay kan Najib Alpha ahaan iyo taageerihiisa dabcan aniga taageerihiisa kamid ah wixii xumaan ka soo raacana waa magacaada soo walaalkay Najib waxay ahayd ina ogaatid hadii showga la cancel gareeyay ina dadkii aad ogaatid in lacagtoodii loo celiyo oo refund loo sameeyay I hope waa rajeenaya in refund loo sameyn doono dadkan lacagooda loo celin doono sababtoo ah dadka lacagaha waxay u baxsadeen in fanaanka weyn Najib Alpha ay daawadaan hadii ay taas suurtoobaydo waxay xaq u leeyihiin in lacagooda dib loogu celiyo dabcan halkan waxa la soo dhigayaa ama halkan uga jeedaan xataa dadku waxay soo sawireen in mataqaana refundkii markii ay dalbadeen emailkii loogu soo diiday ama lagu yiri refundka ama requestiga waa idinka xiray waxaan aaminsanahay hadii ay dadku ay la xiriiraan in mataqaana bangiga ay tagaan xaaladana ay u sharaxaan dabcan in xal laga gaari karaan aaminsanahay waa tahay ugu dambeyn waxaan leeyahay fanaanka weyn Najib Alpha dawara no legend barmootarada qaar dad shacabkay kugu diraan barmootarada qaar waxyaalo adiga sharafkaaga dhaawacay bay sameeyaan ina adiga ogeyn way dhici kartaa dadkii halkaas lacagahooda ku waayna waxaan leeyahay warnabar xaqdan Allah idinkaga dhigo waa Najib Alpha ina lacagtaas showgaas ina daawateen ama uu idin kala kiciyaba ama habeenkaas waxa way jawi qaadateen ka soo qaada waa haday lacagta fogaato la soo saari waayo dhalinyarada la shaqeynaysa barmootaradana waxaan leeyahay war maanta dad fanaan sida u gashaan oo aad qadaftaan oo lugaha qabataan oo shacabka ku dirtaan bari fanaan idin imaan doona ma jiro reer London idinkaan betelayay oo barmootara ka ahaa ceeb maanta hadaad keentaan bari waxa ku ceebeysan reer London idinka ku ceebeysan showidina hoos u dhac ku imaanaya fanaaniintiina aaminaan ba hoos u dhac ku imaanayso marka boqolkiiba boqol waxaan leeyahay dhalinyarada barmootarada meeshaas ka ah arrinkaas dadkaas lacagooda ay maqan yihiin ee kumanaanka ku gaaraya ee aad jeebka lagu wada shubtay lacagahaas hala meeleeyo meelna dadka ha loogu sheego intaasan codsan lahaa shacabka reer London ku nool ama magaalada London ku nool aad baan u salaamayaa saraakiish intii London igala socoto maanta commentiga idinkaga baahan yahay bal arrinkaas wixii aad ku ogtiin noo faahfaahiya barnaamijkii maanta intaasan kusoo gabagabeynaya haddii aan ugu cusubtahay subscribe taada waa dhiirigelin like taada waa codsi commentigana fikirkaaga ugu laasa intaan ku kulmi doono barnaamij ka lamid ah ووزير كريم قداس مامك سومالي الشرمين إذن الله جو جو